بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى وحن ويديسانينا إنه علم نافع ونسيه كاسو آخري أدون كبد بادنو أن كل بادنو أدون كان أن دواتوديسا وقبد بادنو آخرنا أن الله ridihiisa raali noqoshadiisa iyo jannadiisa aan ku helno intaa kadib waxay noo socdaa casharadeenii aan ku ballansanayn ee kitaabkeenii hidaayat lmustafiid fi axkaami atajwiid waxaynu soo qaadanay 3 cashir oo hore labadii hordhac maanta iyo fasalkii faslun fi axkaami alisticaadati walbasmala kaas oo aan labadiisii su-aalood su-aashii hore hal cashir aan ka dhignay iyo jawaabteedii maantana marka waxaynu qaadanaynaa fasalkaas faslun fi axkaami alisticaadati walbasmalati su-aasha iyo jawaabta labaad fasalkaas wuxuu ka kooban yahay su-aal hore oo ah idaa ata alqaari'u bilisticaadati iyo jawaabteeda fiiha 4 awjuhin su-aasha labaadna idaa ata alqaari'u bilbasmalati بين الصورتين فكم وجهنا فيها كاسا مركا أي نعشر كأن أفراد نقرية سيدا هرأس وشيغني سين مرول بوا سؤال جيمنا وجواب إذا قرتي أتا ولي مادو القارئ مد كان آخرنا بالبسملة بسنكي بسمل مركا هرأس وعدينا محانري بسن قبصة شدي bisinkaasoo bayna suuratayni laba suuradood u dhexeeya yacni suurad soo dhammaatay iyo suurad kaloo bilaabanaysa kitaabka qur-aanka maxaa dhexdooda ku yaala bisinka ayaa laga hadlayaa axkaamtiisa fa ka meeqa wajhan hab ama qaab ama weji ama choice ayaa fiihaa labada bisin bisinkaas labada suuradood u dhexeeya ayay ku noqonaysaa ayaa ku jira ama ku banaan aan ku celiyo marka tii hore may la mid tahay erayada un baa kala duwan idaa goortii ataa uu la yimaado alqaari'u midkan akhrinaya alqaari'u maxaa niri ka qur-aanka akhrinaya inuu qur-aanka akhriya rabo bilbasmalati bisinkaasoo bayna suuratayni laba suuradood dhexdooda yaala yani suurad dhammaatay iyo suurad bilaabanaysa kitaabka qur-aanka bisinka ku dhex yaala markaa rabtid inaad akhrisid fa ka meeqa wajhan way ama qaab ama hab ayaa fiihaa kugu banaan bisinkaas fiihaada maxay noqonaysaa bisinka u noqonaysaa bisinkaas kugu banaan jim fiihaa waxaa bisinkaasi ku banaan xukunkan waxa qaadanaya waa bisinkii la soco fiihaa waxaa bisinkaasi ku banaan oo aad samayn kartaa 4 awjuhin 4 qaab marka hadda maxaan oranaynaa ku banaan oran mayno waxaan oranaynaa fiihaa waxaa ku jira ama ku sugnaaday bisinka dhexdiisa oo bisinka xukunkiisa uu noqonaya 4 awjuhin 4 qaab ama 4 way 3 awjuhin 3 qaab ama 3 way ama 3 joos jaa-izatun waa kuwa adiga kuu banaan oo taa rabto aad ka samaynaysid wa waaxidun mid ayaga ka mid ana ghayru jaa-izin waa mid aan kuu banaanayn waa mid aan kuu banaanayn waaya halkaa marka muxuu ku tusinayaa bisinkan u dhaxeeya muxuu ahaaye suuraddii dhammaatay iyo suuradda bilaabanaysa axkaamta ku jirtaay inay tahay muxuu ahaaye 4 maadaama 4 yihiin 4tii kulligood kuma wada banaana 3 ka mida ayaa kuu banaan midna kuma banaana taas ku cadaynay marka fiiha waxaa dhexdeeda ahaaday 4 awjuhin 4 qaab 3 awjuhin 3 qaab jaa-izatun waa mid banaan
وواحد مدنا غير جائز ومد أن بنانين أرجع غير هذا أرتد مد آن بيطلع آن أفصمالي غير جائز مد آن بنانين أما الثلاثة صدح ذي الجائزة بنانيت أما الثلاثة صدح ذي الجائزة كو بنانيت يعني إن السميساي الحق ولهيت صدح ذي كو صهر مرني عمك عفرتوذي إلى صمرك فالأول متك أوه الرأي صدح ذاس فالأول متك كوبات كأوه الرأي منها هذا يقول نقنسها صدح ذي ونقنسها منها صدح ذا وجي صدح ذا قاب صدح ذا هب محو نقنيا قطع الكل إن أمانتود لك لقوقويو مركا قطع الجميع أو عشر كهوراء تيكو جرتيه هي قطع الكل واسكمت لابد أري أمبو مربا متكو استعمال قطع الكل إن أمانتود لك لقوقويو لك لجرجرو محا لقا ولا مركا إن suuraddii dhammaadkeedii aada ku neefsato meeshii u dambeysay kadib bisinkii aada akhriso neef aada ku neefsato kadib suuraddii kalena aayadda u horeysay keligeed aada gooni u akhriso oad ku neefsato saasaa marka qadcul kulli tusaale marka muxuu noqonayaa waxaynu soo qabsanaynaa ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس وكا سو جيد الكاسات كو اكيسينيسا ومد بقونيسا نفتاس هو آخرنيسا والثاني مد كاللبات وصدح لكم ذا وصل البسملة إن بسنك كحرتت oo aad ku qabato fi awwal surati surada bilowgeeda والثاني midka labaad wasl البسملة inaad bisinki ku xirtid fi awwal surati surada bilowgeeda oo muxuu noqonayaa tusaaluhu yani bisinki iyo suuradii ka dambeysay aayadeed u horeysay hal neef aad ku akhrinaysaa suuradii dhamaatayna aakhirkeedii markaad meeshii u dambeysay aad akhriso waad neefsanaysaa marka muxuu noqonayaa ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس هكا والثالث متك صدحات oo saddexda waji ama saddexda qaab ee ku banaana kamida waslul kulli in dhamaantood wada xiriiriso yani suuradii dhamaatay meeshii u dambeysay iyo bisinki iyo suuradii kale aayadda u horeysay hal neef inaad ku wada akhriso oo idan muxuu noqonayaa tusaale ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس كل يوم حل نف إن تاسق وضع ميس وأما غير الجائز وأما واسرع سينيسا انت اصلا سعطورا واما غير الجائز متك ام بنانين في الصومالي كو هبون واسداس واما هي غير الجائز متك بنان كغير كيساء ايضا في الصومالي كله لكن محا هبوننا تراد واما غير الجائز midka aan banaanayn hal marna isku duubto oo si jumla aad u bixiso ama wa amma he ghayru al-jaizi ka banaan ghayrkiisa midka ah midka ka banaan ghayrkiisa yani midka aan banaanayn way maxaa marka aan ku dooray wa amma ghayru al-jaiz midka aan banaanayn fa huwa asagu ma واكي سرعسين تانا وحبا كلا قوين فهو ما
واكي فهو أصغو ما واكي لبضو دي كرتا إيه تراد فهو ما واكي واسلوا صعطة أما فهو أصغو هي ما واكي إذا قرتي وصل لغو حرو لغو دوقبته آخر الصورة suuradda gadaasheeda ama dibteeda ama meeshii u dambeysay bilbasmalati bisinkii lagu daba qabto wa wuqifa lagu istaago bisinkii marka lagu neefsado wabtudia la bilaabo bimaa kii bacdahaa ka dambeeyey hada ayay noqonaysaa bisinka bimaa kii bacdahaa bisinka كدنبي بفهم كرتا سما يعني سورة الفلق ماشي قدام يسو إذا حسد أحيد يبسنكي بربناس أهري ياد هل نفكو وضع آخر نيسا مركا هل كان نفكو وضع آخر نيسا يتكدب قلع بربناس بالله بيسا كامركا ما بنانا أنكسو علي مركا وأما غير الجائز midka aan banaanayn ka banaan ghayrkiisa midka ah labada af Soomaaliba fa huwa asagu ma waki fa huwa ma wa asagu waki hada israas fa huwa asagu he ma waki hada labada tiraad aday ku tala ida goorti wasila lagu xiro lagu dawa qabto lagu dhajiyo hal neef la iskula wada akhriyo آخر السورة سورة قداش هذا أما دبت هذا أما دمات كذا بالبسملة بسنكي لو وقبت لو حرة هل نافل سكول آخرين سورة دمات هي بسنكي ليس رأسيه ووقف لو استاجه بسنكي لو نافس دوش مركل الآخرية كده وابتدي الله بالله بما شيء أما وحي بعدها بسنك كدمي هذا بسنك أصلا نقنس بعدها بسنك كدنبي مركو حكو الكاس ما بنانا تساليس مركو محو نغنيا ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم اسكن نفسه قل أعوذ برب الناس كدب أصابسي وطن محل لو ديدي مركا انت انضم محوكو عدينيا صوبت لو ديدي اللي ما يحاول بالإيرا واي ووجه عدم جوازه انت واسرع سينيسا ووجه عدم جوازه بناني ذيسا وايتانك لواي حبكا اما جوسكا اما قابكا وحوية وأنا أنت أصلاً أساس الرعسيسة وإن نحوذا وحلقوا إلى هذا وي مضاف إليه مركا ذو ما هذا جارين وحبا كو مشغولين مايو لكن أبو الصومالي كان كل شيء يتبرع ووجه عدم جوازه بناني ذيسا أو ونقول وح بنان وايتانك اللواي قاب كني وحوية سمجد هذا عدد من المذك أكثر فرفرت مركا وجه وقاب أما choice أما هب عدمنا وويتان عدم وويتان جوازي وبناني هي إنما حيتاي قابك إيه نقنسها أو غير جائز كي ونقنسها مركا حال وكلا فرطو سياسي نقنسها مركا هل مركا ذاك الفرد محنا ونسا ووجه قاب عدم وايد لواي جوازي بناني ذيسا لكن محاكا حبون إن ترى ووجه عدم جوازه بناني ذيسا إنو بناناضه أو قفكو سمين كراي وايتانك لواي قاب كان أما جوز كان أما هب كان وحيطاي أنه أصغو يوهم وحوم لجلنيا أنه أصغو يوهم وحوم لجلنيا أما أموتسينيا
ana albasmalata bisinku min aakhiri suurati suuradda gadaasheeda inuu ku jiro oo suuraddii dhammaatay iyo bisinkan inay isla socdaan oo ay hal isla yihiin. suuraddan kale bilaabanaysa birbinaasna ay tahay bisin la-aan sida bero kaleeto. sidaas marka shakiga qofka ku dhagaysanaya ku dhacay darteed ayaa loo diiday. waaya aan ku soo celi marka muxuu yidhi wawajhu cadamu jawaasihi banaanidiisa waayitaanka la waaye qaabkaani waxay tahay annahu asagu waa qaabkiiba unoqonaysaa yuuhimu wuxuu u moodsiinayaa ama u malagelinayaa ama uga dhigayaa qofka ku dhagaysanaya. yuuhimu wuxuu u moodsiinayaa ama u malagelinayaa ama uga dhigayaa ama u qaadanayaa ana albasmalata bisinka min aakhiri suurati suuradda dibteeda ama gadaasheeda ama meesha u dambaysa inuu ku jiro. yacni bisinkan inuu suuraddii dhammaatay uu raacsan yahay. qul acuudu birabinaasna inay bisin la-aan tahay sida balo. shakigaas intuu meesha imaan lahaa darteed baa loo diiday suus shakiga u imaanin. waaya tusaalihiina marka waan kuu soo tusaaleeyey. maxaa marka habboon inaan halkan aan ogaano? waxaa habboon waxaa weeye fasalkan oo faslun fi axkaami alisticaadati walbasmalati sheekhu wuxuu kugu baray acuudu iyo bisin iyo suurad qur-aanka ku jira sidii aad u ogaan lahayd. waxaa kuu bannaan inaad samaysid iyo waxa aan kuu bannaanayn oo inaad ka tagto la rabo. marka wuxuu kuu soo qaatay marka ugu horeysay acuudu iyo bisin iyo suurad oo uu ku yiri 4 ayaa kugu bannaan inaad acuudu keligeed hal neef, bisinka keligiis hal neefsasho, suuraddii keligeedna hal neefsasho. qaabka labaad muxuu ku yiri inaad israacsiisid muxuu ahaaye bisinkii iyo suuraddii oo acuudu keligeed hal neef ku akhriso, bisinkii iyo suuraddiina hal neefsashaad ku akhriso. kii saddexaad muxuu ku yiri in acuududii iyo bisinkii aad isku xirto oo suuraddii si gooni ah oo akhriso hal neef aad ku akhriso. kii dambena muxuu ku yiri inaad kulligood isku wada xirto oo markaa waa bisin iyo suurad, acuudu iyo bisin iyo suurad isla socdo. kadib haddana wuxuu kuu soo faa'iideeyey xukun kale oo ah bisinka suurad dhammaatay iyo tu bilaabanaysa kitaabka ku qoran bisinkaasi qaabka lagaa rabo inaad la macaamisho. wuxuu ku yiri waxaa ku jirta 4 axkaam, 3 way kuu bannaan tahay midka rabta samee, halna ka fogow. 3 kuu bannaanayd midka ugu hore wuxuu ku yiri inaad suuraddii dhammaatay neefsato markaad dhamaysid, bisinkii aad akhriso ood neefsato, kadib suuraddii kaleed bilaabaysana aad neefsato. waaya kan labaad wuxuu ku yiri inaad suuraddii markay dhammaato ood dhamayso iska neefsato, bisinkii iyo suuraddii kale aad isku daba qabato. ka saddexaad wuxuu ku yiri in suuraddii dhammaatay iyo bisinkii iyo suuraddii kale bilaabanaysa aayadda u horeysay hal neef aad ku wada akhriso. intaa ku bannaanta. laakiin mid baan kuu bannaanayn kaasoo laga yaabo inaad qur-aankii si uusan allah subxaana watacaala uuna usoo dejinin iyo muraad iyo dan uun ka lahayn inaad qofka ku dhagaysanaya si ninkii reer baadiyaha ahaa ee ninkii qur-aanka la xaninayay markuu dhagaystay yiri anigu ciddu alla beri ka noqda ay beri baan ka ahay oo markaasi aayadda uu ka fahmay in rasuulka sal ly slam alla uu beri ka yahay saysa u dhicin oo aada qofka xukun aana ku jirin kitaabka aada u siinin yaa wuxuu ku yiri midka aan bannaanayn waa in suuraddii dhammaatay oo falaq ahayd iyo bisinkii intaad hal mar isla wada akhriso iska neefsato kadibna qul acuudu birabinaas aada gooni u akhriso. intaas markaan soo ogaanay maxaa muhima marka qofku inuu ogaado? waxaa muhima horta acuududu xukunkeedu muxuu yahay? acuudu bileysigaasi xukunkeedu muxuu yahay oo maxaa ula jeednaa? ma waajibbaa oo qofku haddii uusan acuudu markuu qur-aanka akhrinayo uusan dhihin dembi baa kasoo gaaraya, mase waa sunno oo
hadduu akhriyana ajir buu ka helayaa hadduuna akhrinina dembi loogama qorayo waa shay muhim in ogaatid taa marka culimmadu way isku qabsadeen isqabsi badan baa culimmada ka jira culimmada isqabsigoodaas qaar waxay yidhaahdeen waa sunno yacni haddaad la timaado oo markaad qur-aanka kitaabka la soo kala baxdo aad acuudu billahi min ashaytaan rajiim aad ku bilowdo ajir baad ka helaysaa oo ajir baa lagaaga qorayaa laakiin aduun acuududii akhrinin haddii aad intaa iska akhriso aad muxuu ahaaye bisinka iska bilowdo iska akhrisatana ajirka unbaa isdhaafsiisay culimmada intooda badan iyo ragga quraada ah sidaas ayay ku tageen waaya culimo kale waxay yidhaahdeen acuududu waa waajib qofkii ka tagana wuu dambaabayaa kuwa marka dambe oo dhahayo waajib maxay ugu soo delisanayaan aayaddii qur-aankayd faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashaytaani alrajiim oo waxay dhaheen aayadda waxaan ka fahanay fastacid waa amar amarkuna muxuu keenaa markii laga hadlayo usuul fiqiga wuxuu keenaa waajib marka waxay dhaheen qur-aanka allah subxaana wa tacaala wuuna faray oo fastacid baa la yidhi halkaa marka waxay noo faa'iidaysay dhaheen inuu waajib yahay culummadaasi marka sidaa yidhi oo aayaddaa ku dhegay culimmada kalena waxay yidhaahdeen maya waajib ma ahane oo meeshan lagama faa'iidayo inay waajib tahay isku soo duuduub marka inaad acuudu billaahi min ashaytaan rajiim aada akhrisaayey hadalka odhanaya waa shay sunno ah ayaa raajixa kuwa odhanaya waa waajibna ayagu waxay ku leeyihiin ood hadalkooda ka fahmaysaa cumrigaaga o dhan haddaad hal mar akhriso ood acuudu billahi min ashaytaan rajiim aad tirahdid wuu kaa dhacayaa marka waa ooda jiid iyo qaad isla gurigeynti marka way isu soo dhow yihiin marka sida raajixee fiican inay sunno tahay haddii aad akhriso ajir aad ka helayso mar walbana ay fiican tahay inaad acuudu akhrisid oo shaydaanka allah aad ka magan gasho sidaas ayaa markaa raajixa laakiin culimo kale inuu waajib yahay qaba way jiraan haddaad aragtid ha u qaadanin kulligood way wada dadaalayaan arrinta labaad oo muhiimka inay tahay inaad ogaatid waxay tahay acuududa sidee loo akhrinayaa meeqa qaab ama hab ayay leedahay oo soo aroortay sida culummadu intooda badan oo dhan sida intaan ogahay ay doorteen waxaa weeye in la yidhaahdo acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim waa kana isla wada naqaano waayo maxay kala soo baxeen waxay kala soo baxeen suuratu naxli aayaddii hadaayto inuu waajib tahay acuudu billahi inay sunno tahay ay culimmada isku haysteen maxay ahayd fastacid billaahi min ashaytaani alrajiim halkaasay acuudu ka soo qaatay marka iyo intii dambe soo raacday waaya laakiin waxaan ognahay in rasuulkana sala allahu calayhi wasalam ay ka sugnaadeen qaabab kale marka qaababkaasi oo dhowr ah ayaan kuu soo gudbinayaa qaababkaas waxaa ka mid ah ka sugnaaday rasulka sal ly slm inuu yidhahdo qofku acuudu billahi asamiici alcaliimi min ashaytaani alrajiim qaabka koobaad oo kuu banaanya inaad tiraahdid kii acuudu billahi min ashaytaani alrajiimi inahu huwa asamiicu alcaliim oo asamiicu alcaliim aad dib soo mariso inaad tirahdid acuudu billahi min ashaytaani alrajiimi ina allaha huwa asamiicu alcaliim waxaa kaloo rasuul ka sugnaaday sal alla alay slam inuu dhihi jiray acuudu billahi asamiici alcaliimi min ashaytaani alrajiimi min nafihi wa inkastoo iga maqan yahay laakiin uu qofku ugu tegayo sifa salaati nabiy sal marka intaasoo qaab ayaa rasuulka sala allahu alay wasalam ka wada sugnaaday marka midka alaal midkaad dooratid kuma dambaabi maysid marka mid allaale midkaad dooratid ku
dambaabi maysid waxaa kaloo muhiima inuu qofku ogaado acuududa halkee ma kor baa loogu dhawaaqayaa ma hoos maxaa habboon in acuudu bileysiga la siraysanayo oo aan kor loogu dhawaaqaynin oo hoos loo akhrinayo 4 meelood ayay ku soo aroortay yacni 4 meelood ama 4 xaaladood markaad ku jirtid waxaa habboon inaad acuudu bileysigii aad siraysato oo hoos aad u akhriso kow maxaa ka mid ah markaad qur-aankan aad akhrin rabtid ee aad kitaabka la soo kala baxday aad rabtid inaad hoos u akhriso matalan meel bulsho ay joogtaa ama masaajidka jumacadii kaleeto qur-aankii inaad kor u qaado dadka ama tukanayay aad tashwiish ku furto lama ogola marka inaad hoos u akhrisato daartid markaad bilaabaysid hoos baad u akhrisanaysaa oo oran maysa acuudu billaahi min ashaytaan rajim kadib qur-aanka hoos uma akhrinaysa kow waxaa kaloo ayadana waxaa qofku markuu keligii yahay iduna inuu acuudu hoos u akhristo waa qaabka labaad ee u bannaan qaabka saddexaad wuxuu yahay qofku markuu salaada ku jiro ayaduna waa inuu hoos u akhristo waa marka saddexaad weeye hoos inuu ayaduna u akhristo salaada ha noqdo salaad cishe maghrib subax duhur casr salaad yarto ha noqoto mid qur-aanka hoos loo akhrinayo ha noqoto mid qur-aankana kor loo qaadayo marka ayaduna waa in marka afraad waa marka subaca lagu jiro ama ay dad badan qur-aanka isla wada akhrinayaan ilaa haddii la yidhaha qof walba marka aayaddii soo gaarta acuududii xogaa waxaa gelaya marka meeshii tashwiish marka iduna waa inuu qofku hoos u akhriya marka maxaa kuu soo baxday 4 arrimood kow 4 jeer markaad qur-aanka aad adigu rabtid inaad hoos u akhrisatid waa inaad acuududiina hoos u akhriso markaad qur-aanka salaada markaad ku jirtid ilan markaad ducada akhriso kadib acuudu billahi baa lagaa rabaa soomaa ayada markaa hoos baad u oranaysaa marka saddexaad waa marka subaca lagu jiro ama dad isla akhrisanaysaan ayaduna hoos baad u akhrisanaysaa marka afraadna waa markaad keligaa tahay saddexdaas arrimood waxaa habboon qofku inuu acuudu bileysigii uu siraysto sidaasaa qurux badan ama intii wixii ka soo haray intaas afartaa ka soo haray yacni qofku waa wax u bannaan ajirna uu ka helayo hadduu acuududii uu kor u akhriyo arrinta afraad ee iyaduna muhiimka ah goormaa la akhrinayaa acuududii acuududa waxaa la akhrinayaa inta aada qur-aanka bilaabin ka hor inta aada qur-aanka bilaabin ka hor acuududa waxaad la imaanaysaa ha noqoto suurad dhexdeed aad ka bilaabayso ha noqoto suurad hadda aad bilaabayso mar walbaba intaada qur-aanka akhrinin ayaa waxaa loo baahan yahay in acuudu bileysi aad la timaado culimada marka qaar baa waxay oranayaan qiraa'ada kadib laakiin sida fiican faidaa qara'ta alqur'aana yani maxay noqonaysaa faidaa qara'at marka aad rabtid wey aradta oo kaleeto biyo lama tahay idaa qumtum ila asalaati yani markaa u istaagtaan maahan intaydan salaada u istaagin salaada ka hor sooma weyse qaadku waa sidaas oo kaleeto marka taas ayaa iyaduna ama ha noqdo suurad aad bilaabaysid ama ha noqoto muxuu ahaaye suurad dhexdeed ood akhrinayso acuudu bileysiga intaada qur-aanka akhriska bilaabin ayaa iyaduna lagaaga baahan yahay afartaas arrimood koow inay waajib iyo sunno midkay tahay oo aan niri inay sunno tahay ayaa culimmadu intooda badan isku raaceen culimmada qaarina way jirtaa waa waajib ayaguna waajibkoodii waxay yidhahdeen qofku haddii cumrigiis intuu nool yaho dhan hal mar uu acuudu billahi min ashaytaan rajim yidhahda dembigii wuu ka dhacayaa hal meel ay isugu soo biyo shubanayso iyo midda saddexaad labaad oo ayaduna ahayd ereyga lagu dhawaaqayo oo aan niri inta badan culimadu maxay u badan yihiin acuudu billahi min ashaytaan rajiim oo ah ama in lagu daro acuudu billahi samiic alcaliim min ashaytaan rajiim iyo noocyo kale oo tiro badan oo qofku inta badan uu ka helaya kitaabka sifa salaat nabiy sala allahu calayhi wasalam haddii uu dib ugu noqdo waayahay arrinta saddexaad oo ayaduna aan niri mal hoos baa loo akhrinayaa mise kor waxaan niri 4 jeer inuu qofku hoos u akhrinayaa wixii ka soo harayna hadduu kor u akhriyo
iyo hadduu hoos u akhriyo labadaba way u bannaan tahay, ajir buuna ka helayaa. afartaas waxaan nidhi kow markuu salaada ku jiro lama ogola inuu kor ugu qaado. labo markuu subca ku jiro ayadana lama ogola inuu kor u qaado. saddex hadduu qiraa'adaas qur-aanka uu akhrinayo hoos inuu u akhristo marka horeba uu niyeystay oo hoos inuu akhristo ay ahayd ama meel masjid ay tahay, ayadana lama ogola inuu kor u qaado. midda saddexaadna waxay ahayd markuu qofku keligiis meel cidlaa u joogo, ayadana hoos ayuu u akhrisanaya. afartaasi marka ayaa noogu sugan. bisinka waa kuu saaray marka. bisinka quraadoo dhan way isku wada waafaqsan yihiin in qur-aanka awalkiisa oo bilowgiisa suurat alfaatixa ah in bisinku lala imaanayo. waxaa kaloo isku waafaqsan yihiin in suuratu tawba oo soomaaliduna u taqaano baraa ayaduna aan bisin lala imaanayn oo ay bisin la-aan tahay oo ayn bisin wadanin. waaya qofku markuu marka suurad bilaabayo waa qasab inuu bisin ku bilaabo haddayna bara ahayn. laakiin hadduu dhexda ka bilaabayo bisinka ma la imaanaya mise lama imaanayo, taas asaga iskale jooskeeda waa u bannaan tahay. matalan inamaa yastajiibu aladiina yasmacuun mar hadda inaad ka bilowdo qiraa'ada kuu joogtay acuudu markaa akhriso bisinka ma ku daraysaa mise iskama dhaafaysid? haddaa rabtid ku daraysaa, haddaa rabtidna waa iska dhaafaysaa. taa marka adaa iskale. marka bisinku uu gaar maaha suuradda keliya, laakiin qiraa'ada markaad bilaabaysid oo acuudu aad akhrisid, bisinkii inaad la timaado ood akhriso iyo inaad akhrinin waa arrin adiga kuu taalla. haddaad akhrisidna ajir iyo wanaag baad ka helaysaa, haddaad akhrininna bisinkii wax dembi ah oo lagaaga qoriyo ma jiro maadaamayna suuraddii aysan ahayn. marka tii bisinkiina halkaa ayaan uga baxaynaa, waayo maadaama adigu aad arday bilow aad tahay khilaafaadka tirada badan kusii geli mayno. marka cashirkeennii afraad isna intaas ayuu ku egyahay. allah subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa dembi dhaaf ilaahay intaan cashir kale aan kaga kulmayno. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.